kooxda kubadda cagta BBJ waa kooxdii aan ka soo bilaawayay kubadda cagta waanu ku hamin jiray in aan ka mid noqdo dadka ugu dhaxaad ku ah ama kooxda hogaamiyo waxaan rabay mar walba inaan arko anigoo kooxda kabtan u ah inaan kula guuleysto Real meesan dhicin hamigeygii maadaama anigoo ciyaaryahan aan fulin waayo waxaan niyeystay anigoo macallin ah kaashanaya khibradeyda iyo way aragnimada aan leeyahay kooxdan iyo marxaladeeda in aan ku hogaamiyo markii labaad kooxda kubadda cagta BBJ sanadkan maadaama sanadka hore ay ahayd sanad bilow ah kooxdan aan ka badbaadiyo heerka labaad inuu dhacdo wallahi kulliba isbedelka ugu weyn aan kooxda sanadkan aan haminayna waxay tahay in kooxda sanadka hore meeshii ay la'aad in la buuxiyay hadii aan leedahay xaq dhaqaale hadii aan leedahay xaq ciyaartooy sidoo kale waxaan hamigeyga ugu weyn oo yahay sanadkan in kooxda wax aan laga filaynin ay soo bandhigto ka macallin ahaan waxaan ku riyeysanahay inay kooxda Real qaado dadaalka iyo iskaashiga macallimiinta hadii meeshii imaato nasiibkana la saacidana waxaan rajeynayaa kooxda Jane sanadkan inay ku guuleysato Realka hadii weedana ay noqon doonto kooxaha saddexda koox oo tartanka Realka ugu sareeya inay ka mid noqon doonto aaminsanahay sida ku cad Realka waxa la dheelaa 18 ciyaarood 9 ciyaarood waa Realka qaybta koowaad aan daato halka 9 kale tan ay tahay torneo Realka ciyaar walba waxay leedahay saameyn gooniya laakiin aniga ahaan marna waa ii farxad marna waxay ii ahayd ciyaar aad culeyskeeda aan xamili karin laakiin ilaahay xaqiisa fudud iga noqotay waxay ahayd kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta BBJ ee ku xaqiiqsaneeyay in Realka heerka koowaad baa ku sii ahaato waxaana la ciyaarnay dhigeena kooxda kubadda cagta Elman labadaas kooxood oo isku dhibcay ahaayeen loona baahnaa mid kamid ah inay sanadkaas joogto Realka baa ku ahaato mana ahaan kulan aan aad u iloobi doono kulankii aan la ciyaaray kooxda Elman shahan aan leeyahay waxay tahay inaan soo bandhigo ciyaar wanaagsan macallin wuxuu jecel yahay maadaama oo haysto ciyaartoy ku kalsoon yahay in guulo ay la gaaraan ama koob ay keenaan ka macallin ahaan aniga waxaan miisanahay ciyaartoyda hadda haysto BBJ iyo maamulka cusub ee kooxda dhiirgelinta iyo taageerayaasheeda anagoo iskaashanayno in sanadkan aan soo xaran doono Realka wuxuu naga dhaxeeyaa waa ogtahay kooxo sida anaga aan nahay si ka doon isku diyaariyay ayagana hamigoodu sareeyo laakiin garlabana ku maqsuulidan taaganahay Jane waxay u diyaarsantaa sanadkan isbedel weyn la imaato xagga Realka hadda waxaan keenay mid kamid ah ciyaartoydii kooxdan markii ay taalay dhulka ka soo qaaday oo ilaa heerka maanta ay taagsantaa keenay wuxuu noo ahay anaga xilligii aan naadiga ciyaarinay best player ugu fiicnaa naadiga soo maro ama ciyaartoyda ugu saameynta badnay haddaan ciyaaryahankaas ku dhawaaqana magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamuud Cabdinuur Meeman sidoo kale waxaan naadiga hadda ku soo biirinay bortierigii xulka gobolka Banaadir u qaaday tartankii maamul goboleedka sidoo kale sanadkii la soo dhaafay kamid ah goolkiibarka kooxda kubadda cagta Eagan Kalin saddex u suurtagelinay maato haddana wuxuu kamid yahay naadiga BBJ sidoo kale waxaan keenay ciyaartoy mustaqbalka kubadda cagta Reeriise waxaan rajeynayaa insha Allah inay iskaashi badan sameyn doonaan wax qabadkoodana muuqdo soo bandhigi doonaan sanadkan kooxda kubadda cagta BBJ dhismaheeda waxa koow ka taageerayaasha marba hadii ay guul gaarto iyo hadii guul daro gaartaba waa kuwa aad iskugu xiran oo marba jecel inay kooxda niyadu dhisaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta wadaag la ahay ama macallin u ahay koox taageerayaasheeda saas ku jecel yihiin aadna u tiro badan waqti walbeetana garab taagan annagoo hadartan tartan aan dheelaynin oo tababar bis wadna amaal beeto ilaa 15 ilaa 20 kamid ah taageerayaasha kooxda BBJ garoonka lagu soo booqdaan waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan in ay ahaan doonto sanadkii farxadda kooxda taageerayaasha Jane waxaana la wamaasantiin maadaama waqtigiina quruxda badan la noo horteen aad iyo aad u wamaasantiin maadaama fursadan ay siideen inaan ka warbixiyo wax qabadkayga ama hamiga aan ka leeyahay tiraab waxaan leeyahay horumar wacan iyo guul ay rajeynaa insha Allah